Waxaa meel gabagaba ah maraya arrimihii doorashada ee gudaha Soomaaliya, isla markaana Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wajahaya arrimo caqabado ah oo hortaagan in waddanku uu galo doorasho. Waxaana arrimahaas ka mid ah in Madaxweyne Farmaajo uusan marnaba raalli ka ahayn inay dhacdo doorasho uusan gacantogaalaysi ku lahayn. Arrintan ayaa Ra'iisul Wasaaraha waxay ku qasabtay inuu wax badan beddelo, isla markaana hadallo dhowaan soo baxay iyo xogo ay heshay Masaal Media waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Xuseen Roble uu qorsheynayo inuu safar ku tago maamul goboleedyada, isla markaana uu kala arrinsado sidii arrimahani loo wajihi lahaa. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa inuu faragelin xooggan ku sameeyey xildhibaanada gobollada waqooyi ka imaanaya waa Somaliland. Arrintaas oo horay heshiis looga gaaray ayaday awood qaybsi ay ku heshiiyeen guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Arrintaas ayaa waxay noqotay mid kale oo caqabad ku ah arrimaha doorashada. Midowga Afrika iyo ciidamada AMISOM ayaa sidoo kale waxay arrintani ku tahay meel ka dhac kale, maadaama ayagu ay sugayaan amniga doorashooyinka sidii ay horey u sheegeen. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa la soo warinayaa inuu sidoo kale uu ka mid yahay dadka faragelinta ku haya doorashooyinka, maadaama uu Farmaajo meesha keensaday asaga. Waxaa sidoo kale iyaduna meesha ku jira dowladda Qatar oo iyaduna kaalinteeda qaadanaysa. Waxayna arrintaasi dhacaysaa maadaama dowladda Qatar ay qarash badan ku bixinayso arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale waxaa waddanka Qatar ee dalkaasi ku jooga booqasho taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Lamana oga sababta uu u tegey iyo sababaha uu u joogo dalkaasi hadda oo uu safar ku joogo, maadaama uu Ra'iisul Wasaaruhu la kulmayo culays aad u badan. Waxay haddii arrintan ay sii socoto noqon kartaa in mar kale lagu kala kaco arrimihii doorashooyinka ee muddada dheer la soo dharaandhirinayay si dalku doorasho ugu dhaco, isla markaana uu isbeddel u yimaado. Waxaa madaxweynaha Soomaaliya lagu eedeynayaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 4 sano oo dalka joogay inuu kala fogeeyey dowladdii la yabyabay ee lagu soo dhisay dalka Djibouti, isagoo waddanka Djibouti u aqoonsaday cadowga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed leedahay. Arrintaas oo guddoomiyihii baarlamaanka Professor Jawaar uu raaligelin siiyey dowladda Djibouti iyo shacabkeeda. Haddaba maxaa la gudboon Ra'iisul Wasaare Xuseen Roble maadaama doorashadii ay ilaa iyo hadda hore u socolaadahay, muddadii loo qabtana ay soo yaraanayso? Waxaa doorashada lagu qaban doonaa ayaa hore loo sheegay muddo 60 cisho ah, walow hadda ay tagtay 25 beri. Farmaajo si uu u soo laabto wuxuu isku dayayaa inuu maro waddo kasta oo ku heli karo xukunka. Waxaa sidoo kale ah fadeexa kale oo meesha taagan ciidamadii loo qaaday dalka Eritrea oo la soo warinayo in qaarkood la toogtay, halka qaarna laga dagaalgeliyey gobolka Tigray oo uu ka socdo dagaal ba'an oo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ciidamada gobolkaasi ee Tigrayga. Haddaba waxay arrintani taagan tahay marar kale oo soo baxaya oo iyaguna sheegaya in dowladda dalka Eritrea ay ciidamadaasi u haysato madax furasho, maadaama lacagtii ay ku tababaraysay oo ay bixinaysa dalka Qatar uu lacagtaasi bixi waayey, ballantiina looga baxay. Waxaa la soo warinayaa in ciidamadaasi lagu fasho beero, qaar ay ka mid ah oo la hadlay saxaafadda dibadda sida laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayay u sheegeen in beeraha lagu fasho, buurahana la saaro, dhibaato badanna ay ku haystaan gobolka ay joogaan ee dalka Eritrea. Waxay arrintaasi ku tahay Farmaajo mid uusan kursiga ku soo laaba doonin, waxaana loo baahan yahay si dalka doorasho uga dhacdo ciidamada ku maqan gobolka Eritrea ee dalkaasi. Haddaba waxaa jawaabtaasi hadda ka hor ka hadlay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, isagoo u saaray guddi si arrintaasi wax looga qabto, maadaama ciidamadaasi waalidiintoodii ay bannaanbaxyo ka wadaan magaalada Muqdisho, isla markaana ay laamiyada taagan yihiin si ay jawaab ugu helaan wiilashooda laga dagaalgeliyey gobolka Tigray, isla markaana qaar la toogtay. Waxaa sidoo kale soo baxsaday oo xerada ka soo tegay qaar ka mid ah ciidamadii lagu tababaraya dalka Eritrea, waxayna soo gaareen maamulka Puntland iyo kan Galmudug oo ay la hadleen inay si dhuumaalaysiya uga soo fakadeen xerihii ay ku jireen.
haddaba waalidiinta Soomaaliyeed maxaa la gudboon si ay arrintan mar dambe ugu waana qaataan? waxay sidoo kale arrintani sababi doontaa inaysan ciidamada qoran dhalinyarada Soomaaliyeed ee la doonayo inay ku biiraan si waddanka loo difaaco. waxaa hadda taagan xaalad ismariwaa ah walow mucaaradku ay arrintani ka gaabsanayaan maadaama dalku uu doorasho aadayo. waxay sugayaan inta ra'iisul wasaaruhu iyo Farmaajo isa soo arkayaan maadaama Farmaajo horay ay ayagu uga gacan taagteen oo aysan waxba ka qaban karin. haddii ay tahay markii kugu horreysay oo aad soo booqato shabakadda warbaahinta Masali Media, fadlan subscribe saaro ood ku maasantahay daawashadaada lana wadaag saaxiibada.